balaynu aadna talyaaniga oo aad moodo in kooxuhu ay dhegta wax isugu sheegeen dhibcaha waa la kala qaybsaday si guud horyaalka dalka talyaaniga xiisihiisu hoos buu u dhacay waxaana ay koox kasta la timid intii ay kooxi ka dhalisay ka bilow Juventus oo iyadu markaasi eber la gashay naadiga ay la ciyaareysay ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Torino mid ka mid ah kulamadii ugu adkaa ayuu ahaa ilaa laga soo gaaro kulamadii kala duwan ee Napoli iyo kooxda kubadda cagta Fiorentina oo 2-2 ay la gashay Sassuolo iyo AC Milan oo 3-3 kooxda Roma iyo Indonesia oo iyaguna sidoo kale 2-2 ah waa horyaal la mooday in dhagta afka la isku saaray oo dhibcaha ay kala qaybsadeen kooxuhu laakiin naadi kasta iyo dadaalkiisa kulamada ugu dambeeya cidina ma kala adkaan karto koox kasta waxay doonaysaa inay ku sii jirto meesheedii meel u dhow haddii aysan ka sare maraynin laakiin waa la ismaagan yahay oo kooxna koox kama hooseyn karto waxaana hubaal ah in mid kasta oo ka mid ah naadiyadan uu doonayo inuu dhibcayntiisa ka badnaa dadaalka labada dhinac iyo juhdiga ay bixinayaan waxay keentay in dhibcaha lagu loolamo oo la kala qaybsado qaybta wuxumayso sheekada ee ha yeeshee mararka qaar koox bay saacidaa sidaas awgeed kooxuhu sida u muuqata way ku wada qanacsan yihiin oo horyaal barajo ku dhamaaday talyaaniga intaan